waxaa saaka halkan oo ah buundajiifta magaalada Boosaaso laga fuliyay olole nadaafadeed kaas oo ay fulinayaan shaqaalaha nadaafada dowladda hoose ee degmada Boosaaso. goobtan oo ahayd mid inta badan qashin buux dhaafiyay ayaa waxaa shaqo xoog leh geliyay shaqaalaha oo badi qashinkan halkan ka nadiifiyay. inta ay shaqadu socotay ayaa waxaa goobta soo gaaray agaasimaha waaxda arrimaha bulshada dowladda hoose ee degmada Boosaaso Cali Axmed Maxamuud. waxa uuna ka warbixiyay sida ay wax u socdaan fariinna waxa uu u diray dadka iyagoo halkan qashinka keena. waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose magaalada Boosaaso waxay olole nadaafadeed ka wadaa askari jiifta ama buundajiifta magaalada laga soo galo halkaasoo si khaldan dadka bulshada magaalada Boosaaso qaar ka mid ah qashinka u dhigeen. waxaa ku jira shaqaalaha ka howlgala nadaafadda iyo dhammaan agabka gaadiidka loogu talagalay inay nadaafadda ka shaqeeyaan. runtii waxaa laga qabtay halkaas shaqo aad u ballaaran ilaa saaka 6 ayaa laga shaqeynayay. dabcan waa qashin dhigeen dadweynaha ku nool magaalada Boosaaso waana qashin si khaldan loo dhigay. waxaan rabaa halka inaan digniin uga diro dhammaan dadweynaha qashinka dhiga oo caadaystay in halka qashinka dhigaan. waxa weeyaan cid alaale cidii lagu arko inay qashin dame halka dhigto ama cidii lagu qabto waxa laga soo saaray ganaax. waxaan ka direynaa digniin adag in dadku ka digtoonaadaan qashin dame aan halka la dhigin. waayo waa meeshii magaalada laga soo galayay waa wajigii magaalada. anaga ka waxaan diyaar u nahay in shacabku u adeegno inaanu mar walba u helanahay ka shaqeynta nadaafadda magaalada Boosaaso. shacabkana waxaan ka rajeynaynaa inay la shaqeeyaan. sidaa darteed shacabku waa inay ka digtoonaadaan inay qashinka soo dhaweystaan, inay qashinka wadooyinka dhigaan, inay qashinka geeyaan meelaha loogu talagalay. shirkado oo idman baa jira iyo meelo oo idman qashinka loo dhigay loogu talagalay baa jira. waxaan rajeynaynaa inay wacyigelinta shacabku qaataan digniintan ay qaataan. dhankiisa waxaa isaguna hadallo kooban oo faa'iidada nadiifinta goobaha qaar ay leedahay ka hadlay mid ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Boosaaso. dowladda hoose oo olole ballaaran ka wada magaalada Boosaaso walow ay tahay waqtigii ugu habboonaa shaqada in la qabto ay ahayd maadaama ay tahay xilligii la soo noqday oo uu soo gelayo xilligii qaboobaha. waxaan shacab weynaha u sheegaynaa maamaabaa waxay ahayd intuu qashinku kuu jiro waa cudurku kuu jiraa. waxaan leenahay shacab weynaha Boosaaso waan ugu baranay inay mar kasta u dhagan nugul yihiin awaamiirta iyo wacyigelinta. walaalayaal aynu ka digtoonaano wasakhda aynu iska ilaalino inaynu goobaha aan loogu talagelin aynu qashinka dhigno. waxaan kaloo Cabdiweli Maxamed Barre 5TV magaalada Boosaaso. ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking. degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking. si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking. kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka. haddaba ka isticmaal taleefankaaga adeegyada IBS Bank